كل wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan waan ku eegi doono warar la xiriira wadanka Ethiopia qodobada aan ku soo qaadan doonana waxa kamid noqon doona qayladhaanta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee wadanka Ethiopia gaar ahaan waqooyiga wadankaasi oo isa soo taraysa waxa kale oo aan soo qaadan doonaa TPLF oo markii ugu horeysay si cad u sheegatay in ay dawladda federaalka Ethiopia wada hadal toos la gali doonto diyaarna ay u yihiin wax kasta oo wada hadalladaasi suurta gelinaya waxa ka hadlay madaxweynaha deegaankaasi Debretsion Gabramakaa'il waxa kale oo aan idin soo gudbin doonaa wararka la xiriira dagaalada dhinaca waqooyiga ka socda iyo waxaabihii ugu dambeeyay ee halkaasi ka soo baxay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan saaxiibadiina la sii wadaaga aan ku bilownay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa tan iyo markii waqooyiga wadanka Ethiopia dagaaladu ay ka bilowdeen sanad iyo bilo ka hor waxa ay isha si weyn ugu hayeen xaaladaha kala duwan ee waqooyiga wadankaasi ka soo cusboonaanay dagaalada waqooyiga waxay marar kala duwan soo saareen dhacdooyin la xiriira dhinaca cunno la'aanta iyo barakaca dadka shacabka soo gaaray iyagoo marar kala duwan dawladda eedeyma arrimahaasi la xiriira u soo jeedi waana tii haddii aad xasuusataan isku maandhaafeen dawladda iyo iyagu macaluul baahsan ayaa halkaasi ka jirta iyo dawladda oo tiri macaluul kama jirto laakiin caqabado iyo dhibaatooyin ayaa ka jira ay ku kala aragti duwanaadeen halkaasna inta badan la aaminsan yahay caqabada jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo dawladda federaalka Ethiopia in ay ka dhaxtolatay tan iyo dagaaladaasi intii ay socdeen si kastaba ha noqotay sababo kala duwan dartood lama gaarsiinin wax adeegyada deegaanada Tigreega waxayna taasi keentay in baahidu ay marka ka dambaysa cirka isku sii shareerto waxa kale oo meesha ku jiray in goobihii caafimaadka iyo cunooyinkii beerihii ganacsigii dhammaan ay hoos u dhaceen oo ay istaagaan sabab la xiriira dagaalka waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda iyo dawladda oo deegaanada Tigreega cuna qabatayno ay kamid ahaayeen goynta korontada biyaha iyo internetka taasina waxa ay keentay in noloshii dadku ay halis gasho waxa kale oo iyadana meesha ku jiray kadib markii barakacaasi uu yimid iyo dhibaatooyinkaasi kala duwanaa in wixii baad iyo biyo yaalay deegaanada Tigreega in ciidamadu ay ku hawlgaleen oo si qasaba waliba meelaha qaar kood dadka shacabka looga qaadanay waxay taasi sii kordhisay macaluusha halkaasi ka jirtay barakaca waxa uu keenay in wadamada dariska ee dadka Tigreegu ay u barakici lahaayeen marka laga reebo in yar oo markii ugu horeysay dhinaca Suudaan u baqatay aysan heli karin meel ay u soo baqdaan deegaanka Canfarta way ka cabsanayeen sababtuna waxay ahayd in Tigreega ay aaminsanaayeen in dadkaasi cadawsadeen sidoo kale Amxaaro way ka cabsanayeen sababtuna waxay ahayd in la cadawsaday waxa kale oo aysan aadi karin dhinaca Eritrea Djibouti meel ay u maraanba ma jirin Suudaanna markii ugu horeysay waa laga xiray kadib dufcadii ama gufaacadii u horeysay oo hal mar ku yaacday wixii ka dambeeyay cid aaday ma lahayn inta wixii ka dambeeyay dadku deegaanada Tigreega gudahooda ayay ku sugnaayeen marar kala duwan ayaa gargaar bini'aadamtinimo la gaarsiiyay laakiin hay'adaha gargaarku mar walba cabasho ayay ka muujinayeen iyo dawladda oo aan la shaqeynayn waxayna taasi ahayd caqabad jirta golaha ammaanka ama guud ahaan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo war ka soo saaray arinta la xiriirta dhibaatadaasi iyo macaluushaasi waxay xilligan sheegeen caruurta hooyada uur kale iyo umushuba in ay aad ugu rafaadsan yihiin nafaqa darrana ay u dhimanayaan deegaanada Tigreega hay'adda caafimaadka adduunka hay'adda cunnada adduunka WHO waxa ay sheegtay in dhibaatooyin kala duwan ay ka haystaan aan iraahdo waa hay'adda cunnada adduunka WFP waxay sheegtay in gargaarkii ay gaarsiin lahaayeen halkaasi uu khatar ku jiro aysan awoodin caqabado kala duwan mar walba ay soo food saaraan taasi mid keentay ayay ahayd in maalmihii la soo dhaafay dawladdu ay TPLF ku eedeyso arrimaha la xiriira cunooyinkaasi iyo caqabadaha kala duwan ee ku saabsanaa hawshaasi iyada waxa kale oo iyadana meesha ku jirtay in hay'aduhu ay doonayeen in dadkaas la gaarsiiyo deegaanka Amxaarada markii ay sii marayeen
ama kan canfarta ama deegaanada Tigreega iyadana maleeshiyaadkii iyo dadkii dagaalamayay ayaa cunooyinkii si aan ku talagal ahayn iyagoo loogu talagelin yaa cunahay marar kala duwan ayaa istooro xuduudaha ku yaalo raashinka dhigteen islaayeen dadka aad ka siisaan laga boobay waxyaabahaasi oo dhan kuwana qasab laga faramarooji waxyaabahaasi oo dhani waa kuwa keenay dhibaatada iyo macaluusha isa soo tareysay ee waqooyiga wadanka Ethiopia ka jirta xilligan xaalad adag ayaa ka jirta sidoo afayeenka qaramada midoobay sheegay madaxda hay'adda WFP ay sheegeen sidaas la mid ah xubno kaleeto oo jamciyadda qurumaha ka dhaxayso oo ka hadlay waxayna dalbadeen iskaashi buuxa iyo in sidii dadkaasi gargaar bini'aadamtinimo oo degdeg loo gaarsiin lahaa loo sameeyo waxna looga qabta arrimahaasi iyaga wali taasi waxaad moodaa inay ku sii biirtay abaaraha iyo culeysyada kala duwan ee xilligu keenay dagaaladuna ay qaybta ka ahaayeen haddana arrintu maalinba maalinta ka dambaysa waa mid si adkaanaysa dawladda federaalka Ethiopia waxay sameysay kordhinta miisaaniyadda 122 bilyan oo bir oo lagu kordhiyay miisaaniyadii hore dooda ugu badan waxay ka dhacday xagee la geenaya dawladdu waxaad moodaa deegaanka Amxaarada qayb ay ku raali gelinayso iyo qayb ciidamada militariga lagu raali gelinayay kali aha in lacagtan laga dhigi doono inteeda badan marka laga reebo meelo yar yar oo kooban oo mashaariic laga sameyn doono laakiin dadka abaaruhu saameeyeen oo deegaanka Soomaalidu kamid yahay ayaan ilaa iyo hadda cidna dhag jalaq u siinin mid kamid ah doodihii ugu adkaayay shalay baarlamaanka wadanka Ethiopia gudihiisa ka dhacay ayay taasina ahayd halka aan kaga gudubno dhinacaas iyo waqooyiga wadanka Ethiopia iyo dagaalada wadanka Ethiopia waxa ka socda wali dagaalo inta ay qaramada midoobay cabanayso ee abaaro laga sheekaynayo ee dhibaatooyin la sheegayo waxa jirta in wali halkaas ay ka socdaan dhibaatooyin iyo caqabado kala duwan oo dagaaladu ay horinayaan deegaanka canfartu maalmihii la soo dhaafay waxa uu ahaa goobta kaliya ah ee sida weyn loogu dagaalamay waxay kaleeto oo madaxda deegaanka canfartu sheegeen in deegaanuusan gacan ugu jirin ay TPLF ka gacan bixinaysa deegaankoodii dagaal ay ku wadaan waxay soo jeedin ah in dagaalka ay TPLF joojiso Dimitri Wayana waxay laakiin qortay oo dhinaca Tigreega u hadasha in iyaga lagu soo qaaday dagaalka ayna ku soo qaadeen maleeshiyada ee dawladda federaalka gadaal ka riixayso canfartu diyaar garow iyo isku tashi ayay muddooyinkii ugu dambeeyayba ka shaqeynayeen laakiin waxa ku hoos jira arrimo kale oo ciidamo ay ku diyaarsanayaan fursadii ay deegaanka Amxaaradu ka faa'iideysteen oo ay ciidamada iyo maleeshiyaadka ku qorteen ayay iyaguna mid la mid ah xilligan wadaan dagaalku marka wali waa uu sii taagan yahay dhacdooyinka la xiriira dagaaladaasina way taagan yihiin waxay tani ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha deegaanka Tigreega Debretsion Gebremichael oo warbaahinta caalamiga la hadlayay oo sheegay in ay diyaar u yihiin federal government-ga la hadlaan sida ayuu hadalka u dhigay taas micnaheedu waxay tahay in ay ka soo noqdeen adaygii faraha badnaa ee markii horeeto ay ku adkeysanayeen inaysan Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa la hadli doonin waxaadna moodaa halkaasi inuu culays soo food saaray tan iyo kulantii dambe nabad geliyo.